ka dhigo Ramadaan khayrkayga ina siiyey iyo ciid caafimaad sida Ilaahay hayna siiyo iyo cimri dheer iyo dadkeennoo quman oo caafimaad qaba Allah ka dhigo iyo intii bini aadam Ilaahay ogol maanta waxaan aniyo Professor Ali ka wada hadalnay bal sidii arrintan iyada ah loo falanqayn lahaa marka cudurka isaga naftiisa kama hadlayno oo dhakhtar cudur ma nihin oo farsamada dawooyinka bartay laakiinse waxaan ka hadlanaa bal wax uu keenay awal hadmoodasay inuu daahsanaa ama maldahsanaa u qaawiyey ayaan doonana maanta ka hadlo iyo qaawanaanta sidii la isku asturi lahaa haddii Ilaahay kartideeda iyo fahamkeega iyo edabteeda ina siiyo marka Dr. Ali iyo xaruntu aad bay u mahadsan yihiin Xasan iyo dhammaantiin abaabuliyaasha dadweynaha ina maqli doona ama ina maqlayana Allah hayna ilaaliyo Ilaahay ummadeenna ha soo hadeeyo Ilaahay adduunkana ha iswaafajiyo ayaan leenahay ilaan Ilaahay baa dhammaanteen ina wada abuuray diimahan kala haysanno jinsiyahan kala ahaano meelo kala duwan han ku kala noolaano dhaqan gooniyahan kala lahaano qaar qab weyn iyo qaar qab yar lahaanay Ilaahay dadkaasoo dhan inuu iswaafajiyo si ummadda isagu u abuurtay hay u badbaado ayaan Ilaahay ka baryanaa markaas horta waxaan doonayaa inaan ku bilaabo iminka waxaan joogaa magaalada Pretoria jaamacaddeeda iyo waddanka South Africa iminka waxaan joogay ilaa waa bishii shanaad ba ay bilaabantay iminka waxay ahayd 2 bilood oo dhow horteed inaan ka baxo oon Maraykan ku noqdo laakiin diyaarada la waayay wax kale haddayna aniga iga soo gaarin diyaarad la'aan baa iga soo gaadhay oon awal aan laba kaba fikri jirin ee lamoodiyun wax iska socdo dee marka doonaysid inaad fuulaysid haddaad awoodeeda leedahay inaad tigidhada iska bixisid gurigan iminka dowladdan South Africa waxyaabahay samaysa waxaa ka mid ah waa wadamada dowladdeedu waxay noqdeen kuwa ugu horeeya siday isku abaabulayso shantii toddobaad ee ugu horreeyey markii March 20keegii laga soo bilaabay shantii toddobaad ee taa ku xigtay waxa qura dibadda ugu baxasay ma ahayn socod laafiyaysi ma ahayn meel cunto inaad cunto ka soo iibsato iyo haddaad xanuunsanaysid meel farmasiya inaad dawo ka soo iibsato ama dhakhtarka tagtid cid kale oo suuq socotaa ma ayan jirin markaas markii ugu horreyseen doontay inaan meel dukaanada cuntada laga soo gato tago oo ii jira meelowga 10 daqiiqo lugta socodka ayaa wax gaariya iyo bini aadama oo magaalada Pretoria socdaan waay markaasaan dib isku eegoon istaabtay bal inaan runtahay inaan noolahay iyo in kale kolkan wax kaloo nool waay arrinta xooggaas ayay gelisay oo tiri jidadkii way xidhan yihiin iskuuladii way xidhan yihiin shaqooyinkii way xidhan yihiin wax walba way xidhan yihiin waxaana taa ku kalifay waxa weeye sida maalan Korea oo kale hay samaysay waxa ku kalifay waxa lagana baqanayaa ilaa hadda dalkan South Africaanku 3 qaybood ayuu bini aadamka ku nool u qaybsan yahay qayb calool weyn ah oo dheregtay oo intooda badan kibirsan yihiin qayb iska meel dhexaada oo intooda badan soo kacday intii gobonimada la qaatay 94kii ka dambeysay iyo qaybta ugu badan dadka oo maanta hadday wax cunaan berri meeshay ka helayaan waxa ay cunayaan aan la ogeyn meelaha ku nool yihiinna biyo aan lahayn oo meelihii lagu xidhay midabta koorkii apartheid ku xidhay oo dowladdii Mandela iyo Mbeki iyo Zuma inkastoo wax badan kharibay iyo tan imika Ramaphosa aad ay ugu dadaalayaan in guryo loo dhiso dadkaas shaqooyin loo abuuro ilaa waxay dhiseen 3 malyan oo guri intii dowladnimada ay qaateen laakiinse waxaa ka badnaa intaa iyo 3 laabkeed ba ahaa dadkii caydha u dhigay apartheid intuu waddankoogii ka boobay hadduu meelayo galana waxaa laga baqanayaa inuu dacerka isku shareero taas ayaa dowladda ku kaliftay marka awoodda intii hay lahaayeen ismalihi maanta waxbay ka hagradeen
laakiinse maqaal baan maalin dhaweyd ka qoray oo jaamacadda iyo jariidad halkan ka soo baxda Johannesburg u daabacay oon leeyahay tani waxay u tahay cudurkan jugta gaadhsiinaya adduunka fursad weyn ayay South Africa u tahay si cawradeeda ay u asturto cawradeeduna waxa weeyaan qurunkii iyo midabta koorkii iyo dulinimadii apartheid oo keenay oo intii 12 sannadood ugu dambeeyay gaar ahaan Zuma uu joogay xagga looga sii jeestay oon aad loo eegay Mandela iyo Mbeki aad bay u dadaaleen laakiinse halkii la doonayay in la gaaro loomana dhawa marka wuxuu soo saaray markuu cudurkiisi miday ee sida loo kala xidhay dad macaluul qarka u saaran oo malaayiin ah ayuu soo saaray oo dibadda degan oo biyo haysan oo musqulahooga haddii lagu tuso dee had ka fakanaysid wixii doonaysa inaad iska saartidna dib u kuugu noqonayo marka maqaalku wuxuu oranayaa waxa weeyaan 10 sannadood ee ugu dambeeyay marka 2009 laga soo bilaabo ilaa 19 Zuma uu joogay wixii had arki kari weydeen ayuu kana in tusay edabteeda markaa ma la yeelan doonaa in aragga cusub la kalay in wax lagu qaadan doono oo dabadeedna la dhisi doono qarannimo rasmi ah oo dadka u adeegta oo sharaftoodii iyo dadnimadoodii soo celisa dadnimada iyo sharaftan waxa soo celinaya waan ka wada hadli doonaa waa waxa Afrika maanta hay lahayd waay marka taasaan doonayay inaan ku abaaro Afrika waxa laga baqanayaa marka in kasto ilaa hadda waxaan malaynayaa 200 oo kun muu gaarin wali baan isleeyahay haddii aanan khaldanayn inta qof laga helay laakiinse waxa weeyaan waxay ku badbaaday ilaa hadda Afrika waxa weeyaan dadkeega intiisa badan magaalooyin waaweyn ma degana kuma xidhnayn socod ahaan wadan adduunyada kale oo diyaarada imanaya ma jiraan caasimadaha iyo hadda مثلا مقدشو kala laga yaabaa inay ugu badan tahay baadiye uu ku yar yahay marka Soomaaliya oo kale bahalku laakiin se markuu baadiyaha galo alla la bay ku ay ilaahuna badbaadi waay halkana sidaas leeg ayaa looga baqanayaa marka Afrika oo dhan wuxuu u yar yahay ma aha qaar baa been abuuray oo yiri dadka Afrikaanku quwadooda hoose ayaa ka adag bahalkana kuma dhici karo waa been waay kuwa walaalaheena Mareykanka madow waa ka gumaaday waay halkana imika uu gumaadayaa dadkii meelaha kale ku dhacay cayn leeg weeyaan marka khurafaadka ayaan la rumaysan waxa lagu badbaaday waxa weeyaan safar badan oo meelaha adduunyada fara badan ka yimaada ayaan ku xidhnayn Afrika taasi waa ta koobaad imikana wuxuu u badan yahay waxa weeyaan caasimadu ugu badan yahay caasimad kasta oo Afrikaana waa meesha uu ka bilaabmay waay marka caasimada ayaa noqotay naaskii uu ka soo farcamay marka horta caasimada sida Kenya kala hay tiri dawladeedu caasimada lagamana bixi karo lamana soo geli karo taas ayay abaaraysaa weeyaan inako haddaan Soomaalina hayse itaalka maynaan lihin markaas waxa weeyaan cudur socod cudur magaalo weeyaan marka laga bilaabo halkaas haddii baadiyaha Afrika iyo magaalooyinka yaryar u galana ilaahay badbaadiye bay leeyihiin waayo waxaan qabnaa waxa weeye sidan aniyo Professor Ali hore uga wada sheekaysanay 1 bilyan iyo 300 milyan ayaa Afrika min Qaahira ilaa Cape Town min Muqdisho ilaa Dakar inta u dhaxaysa waa intaas weey oo qof intaas oo qof boqolkiiba ugu yaraan 70 way iska qaawan yihiin qaawanaan waxaan uga jeedaa maaha shaar iyo macawis iyo surwaal la xidhan yahay maaha itaal kale oo leeyihiin ma ayan jirto markaas qaawanaanta waa kayd la'aantan ka hadli doono ka fasiri doono haddii alla ka dhigo waxa keenaya bahalkani weyn inuu keeno dad qaawan ayuu ku soo fakaday waay marka intaynaan u gelin waxyaabaha kale waxaan doonayaa gogoldhigin inooga dhigo kolba cudurkani hadduu yahay cudur dadka waaweyn aad ugu halisa dadka magaalooyinka waaweyn jooga ku soo horeynaya bal inaan fahamno Afrika siday u daadsan tahay khariidadeedu halkuu dadku ku nool yahay imisa baadiye ku nool imisa magaalo ku nool imika waxa la sheegayaa boqolkiiba 50 Afrika bini'aadamka ku nool inuu magaalooyin ku nool yahay min caasimada ilaa ta kale ee noqon karta 5,000 oo qof wixii 5,000 qof weyn ayaa inta badan loo ixtiraafsan yahay inay magaalo tahay
wixii ka yar waa daabiyado iyo baadiye weeyaan markaas Afrika boqolkiiba 50 ayaa magaalooyin ku nool laakiinse Afrika waxaa loo aqoonsan yahay marka magaaleysi uu noqdo ama waxaan af Ingiriiska lagu yiraahdo urbanization siday magaalooyinka dadka ku nool u korayaan waa meesha ugu horeysa adduunka kow maanta waana meesha ugu dad badan marka baadiye reer buudaadiye la degan yahay ay noqoto marka dadkii baadiyihii ayaa daad soo furmay noqonaya waayo baadiyihii ayaan waxba la gelin oo shaqooyin laga abuuri waaye oo iskuulo wanaagsan laga abuuri waaye oo shaqooyin wanaagsan laga abuuri waaye marka waxay noqotay dadkii markay beertii yarayd ama xoolihii yaraa dadku lahaa hay caayiladii qaadi kari weyday ay ka bateen ya in markaa daadkaa baadiyaha ka imanaya soo gala magaalooyinkii marka waxaad arkaysaana magaalooyinka matalan haddaad Nairobi aragtaan muqdisho haddaad aragtaan inkastoo dee muqdisho si Nairobi hayna u dhisnayn Kinshasa haddaad aragtaan Kampala haddaad aragtaan Dar es Salaam haddaad aragtaan Conakry haddaad aragtaan Dakar haddaad aragtaan Cairo haddaad aragtaan waxaasoo dhan waxaad arkaysaa waxa weeyaan dadka magaalada ku nool qayb laxaadli waxay ku noolahay buulal aad u foolxun oo biyo iyo caafimaad midnaba lahayn dadka inta ku nool halkaasina shaqooyin wanaagsan oo cuntadooda iyo caafimaadkooda ku filan ma laha marka daadkaas ayaa soo gelaya magaalooyinkii Afrika taasi waa mid qaawanaanta koowaad waayo qaawanaanta labaad inkastoo hoos u sii dhaadhici doono bal waa inaynu isbarbar dhignaa adduunka la leeyahay horu u mara ee kaydka haysta iyo kuweenaan kaydka haysan iyo kuwa u dhexeeya saddex meelood ayaan tilmaam ka soo qaadanaya mid waa Afrika oo dhammaan tilmaam ahaan inii tusi doonaa waddanka kaleen isticmaalayaana waxa weeyaan Turkiga in badan hay joogaan Dr. Cali iyo intiina qaar ka midiba waddanka saddexaadna waa Sweden oo waqooyiga Yurub ku yaala marka tirada bini aadamka ayaa waa la wada tiriyay dhulkii markaasaa la sameeyaa waxa af Ingiriiska lagu yiraahdo population pyramid waa ahraam Masar laga soo qaatay tilmaamtii caynka ahayd marka qofka ugu daaweyn halkaas uu yaalaa kuwa kowjir iyo wax la mid yaalaan hoostaas yaalaa marka waa pyramidkaas oo kale waaya marka Afrika waxa weeyaan sidaas oo kale weeyaan ka Turkigu waa sidaas oo kale ka Sweden waa sidaas oo kale Afrika waa caynkaas waxa weeyaan waxa badan dadkii caruurta ahaabaa badan Turkiguna waa caynkaasoo way iska soo gudbeen halkaasi Swedenna waxa weeyaan kuwa 90 jirka ah ama 80 jirka ah iyo kuwa kow jirka ah ayaa tiradooda isku dhowdahay weeyaan population pyramid ayaa la yiraahdaa bal markaa tilmaam Afrikaanina siiyo min qof yar oo dhashay maanta ilaa qof 30 sanadood jira tirada Afrika intaa u dhaxaysa maxay tahay boqolkiiba waxa weeyaan 4.7 ayaa 30 jirka yar Afrika oo dhan marka dadka intiisa yari waa dad aan shaqayn waayo min 30 ilaa 60 waa xoog bini aadamku markuu yahay rag iyo dumarba ee la shaqaynayo ee la ordayo ee khibrad la leeyahay ee wax la soo celinayo ee tala imanayso 30 ilaa 60 waayo Afrika oo dhan marka la isku geeyo wuxuu noqonayaa tirada bini aadamka intaa u dhaxaysa da'daas boqolkiiba 20.1 boqolkiiba 20.1 20% tii horena 74% ama 4.7 boqolkiiba ahayd marka waad arkaysaa sida aan la iskugu dheelitirnayn waad ka arkaysaa halkaas macnaheeduna waxa weeye dad badan oo soo jiray 30 ayaan gaadhayn 30 ilaa 60 oo leedaya oo dhamaanaya oo dhimanaya ay calaamadaas ku tusaysaa waayo hadday sidaa u socon lahaayeen waa la isku soo dhawaan lahaay waxa laga yaabaa
afartanna xaggan ahaan lahaayeen soddonna xaggan ahaan lahaayeen laakiinse xagganna waa 74 wixii dhalinyara iyo caruura wixii xoog ana waxay noqdeen 20%. maxaa 60 ka weyn Afrika 60 jir maxaa ka weyn ama 60 ha noqdaan ama 70 ha noqdaan ama 80 ha noqdaan marka la isku soo wada geeyo waxa weeyaan 5% iyo badh 5.5%. marka inta tii ugu horeysay ta ku xigtay iyo tan sugayso waa 100% bini aadamkii Afrika ku noolaayo dhan. marka Afrika dad yar ayaa u badan oo 30 jir ka yar 5.7%. bal taa han barbar dhigno markaasi Turkiga han barbar dhigno Professor Ali iyo Xasan iyo dhammaantiin baad wada joogtaan 30% wixii ka yar Turkiga waa 47 waaye 30 meelood ayay ka hooseysaa Afrika. marka dadka Turkiga ku nool da'doodu ay tahay 30 jir wixii ka yar waa 47%. konton way keedii 30 ilaa 60na waxa weeyaan 32%. marka kuwaasaa farabatay kuwii yaryaraana way yaraadeen. yaa ka weyn 60 jir Turki 12% ayaa ka weyn. markan in lahaa Afrika waa caynkan Turkiguna waa caynkan Swedenna waa caynkan halkaasaan tilmaamteedu waa taas wey. Sweden haddaba hanin siya tilmaamteeda yaa 30 jir yaa ka yar Sweden 1% 1% baa ka yar 60 jir ama 30 jir. yaa u dhaxeeya 30 jir ilaa 60 jir Sweden 1% waa la isleeyahay markaasa. yaa 60 ka weyn Sweden 38% ama 38. marka saddexda da'ood markaad isbarbar dhigtid Sweden kuwa ugu tirada badani waa kuwa 60 jirka ka weyn waaye. marka talabaad iyo ta saddexaad su geysaan wixii 30 ka weyn ee 60 ka weyn waxay noqonayaan 60% iyo jarjar ama 70 bay ku dhawaanayaan. marka dadka intiisa badan waa kuwa xooga ee shaqaynaya waaye. Afrikana dadkiisa intiisa badan 75% waa dadka yaryarka waaye. marka tirooyinkaasi waxay ku tusayaan in dadka dhasha Afrika in badani hayna 30 jir dhaafin. bal markaad wadanka ku noqotaan waxaad eegtaan kuwiina joogana eega magaalada sidaa u dhex maro bal aniga cajuuskan saaxiibka ee Dr. Ali waxana la leeg soo raadiya wayari waa dabar go'baad mood camal. marka tagtid Sweden waxaan garanayaa waagii shaqada han bilaabayay Mareykan yaan dhalinyarta ahaayeen dee fantaarka ahaan jiray timo madow iyo afro weyn iyo alaabtii han lahaa ayaa magaalada shaqa u doontay oo la yeero la kaale interview gal jaamacad Florida ku taala. Floridana waxa ku badan dadka da'da waaweyn aniguna dee baarqab baan aho markaa 31 jir iyo wax la mid ah baan ahay. hudheelkii la igu dejiyay galabnimadii markan qolkaygii ka soo baxay meel walon sidaa u eego hudheelkiiba baraxadiisii meeshii swimming poolkii lagu dabaalanayay maqaaxidii gudaheegii wax ileegba waan waayay wax 70 iyo la mid ah mooyaane. marka qolonkii macallimiintii markay yimaadeen ma ku war halkeed geyseen markaas ay maxay mushkiladu tahay waxaan ku yiri wax daadayda waan waayay. ما قال أمي واحد كنت تصل تلمامتي هن كهدلي مركا وحويان تذكير رأي أفريت واتن كها ما بدافعيان إن بدني صدق جير ما دافعيان صدق جيرنا ومركض صندن إلا كنت ندوا مركا اللي هيدي يا بسم الله الرحمن الرحيم حوق اللي هي مسكحي مرق بالله شقين أيوه
hadduuna markaa dadkaasi jirin meel cidlaa ayay qaaradii ku soo dhacsa weeyaan kayd la'aantan ka hadlana waayo waxa kaloo tilmaamaysaa waxa weeyaan xoogga caafimaad la geliyey iyo cunto la geliyey ayay tilmaamaysaa oo cudurrada badan dadka intiisa badan waxa dilaa waxa weeyaan daranyo weeyaan daranyana bini aadamuu ka adkaan karaa oo ilaahay dee maskaxdii ku siiyey iyo muruqii ku siiyey iyo tawjiihii iyo tilmaamtii ku siiyey haddaad raacdid waxaa meel baad ku xidhi ilaahayna cimriga wuu kuu dheerayn ilaan waa dadaashay oo edabaad yeelatay markaa tilmaamta eeg bal hadday Sweden eega waa 30 markaa 68 ama 69 boqolkiiba ayaa 30 ka weyn Sweden innakana Afrika haddaan nahay Soomaaliduna way ugu soo hooseysaa Afrikada kale 74 ayaa 30 ka yar markaad khariidada tirada bini aadamka sidaa u eegtid waxaad isweydiinaysaa faa'iidada tirada Afrika ama Soomaaliya siday u dhigan tahay faa'iidadeeda iyo faa'iida daraanteedu maxay tahay waayo mid waa dhalinyartii waayo dhalinyartuna markaa wixii dee 15 17 20 ka weyn ilaa 30 waa dee muruq iyo alaab baa la hayaa soo ma ta kalena waxa weeyaan wixii xikmadi keeni lahayd eedda iyo khibradi keeni lahayd ayaa kaa leeday marka waxa weeyaan dad fara badan oo Afrikaana ama Soomaali ah oo 30 sanadood soo shaqeeyay oo khibradii iyo caafimaadkii labadaba hayaa uu yar yahay weeyaan marka dad aan khibrad lahayn ayay taladii ku soo baxsanaysaa weeyaan ama macallinimo ha noqoto ama dhakhaatiir ha noqoto ama ahlu dawla ha noqoto ama wax kale doonayaan ha noqoto tiradiiba aad u yaraatay meel hay gaadhaanba ma jirayso markaa tirada bini aadamka sidaa aan u dhignay waxay ka tarjumaysaa faqiirtinimada iyo saboolnimada Afrika Turkigu sidaa u sabool maaha Swedenna hadalkeedba hala daayo markaan tiradii sidaa u dhignay su'aasha kale aan isweydiinaynaa waxa weeye adduunka maanta iyadoo tiradu sidaa u taallo aan aragnay maxay yihiin waxyaabaha ugu adag ee soo fool saaray bini aadamka adduunka ku nool dan arrimood ayaan ka soo qaadaya kow waxa weeyaan dadkaaga sideed cunto iyo caafimaad u siin lahayd waa challenge-ka ama jarribadda ugu horreysa waayo ee adduunka oo dhan ka taagan cunto iyo caafimaad dadkaaga sideed ugu heli lahayd taa haddaanad hayn wax kale ma haysid tiradiina hadda xusuusnaada haddeer ka soo hadlay arrinta labaad ee jarribadda ee hortaagan bini aadamka adduunka oo dhan meeshan joogay Maraykan lagu dhaho iyo meeshan ka yimid Soomaaliya lagu dhaho labadaba sidee baa loo dayactiraa biicadii ilaahay uu ina siiyey ee caafimaadka iyo cuntadaba haysay sidee loo ilaaliyaa oon loo baabiin taasina waa ta labaad weeyaan ta saddexaadna waxa weeyaan bini aadam oo dhan hortaallaa sidee dadkaaga wax loo baraa farsamana loo siiyaa education and skills sidee loo siiyaa ta afraadna waxa weeyaan sideebaa ummad meel wada degan oo ummad sheeganaysa caloosheeda baxnaansho loogu beeri karaa ay walaaltinimo isku weheshan karaan waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho social cohesion maanta Maraykan geesaha la isku geliyey oo ninkan iyo qolooyinka xulafada uu leeyahay ayaa burburiyey wanaaggii dadku isku hayn jiray ee la isugu gurman jiray teenana waan ka dharagsanahayba araabihinaaru waa ree hebel iyo kaxee cadowgana soo dhaweyso
si walaashkaa kuula dilo waa meel wehel una oolin weeyaan meeshaas ta ugu dambaysana waxa weeyaan waxaasoo dhan marka la isku soo geeyo ilaan adduunka tartan baa lagu jiraaye sidee baa tartankaa uga qayb geli hase aanad u saaqidin shantaa arrimood ayaa ummad kastaba hortaala kuweebaa kayd ka keenay kuweed baana waxbaan ka keenin markaas su-aashay noqon doonta marka Afrika iyo Soomaaliya markaynu sidaa u soo derisno tiradii iyo qaladihii iyo challenge-kii hor yaallay Afrika iyo Soomaaliya halkee bay kaga jiraan waayo su-aashu waad fahamsantii maan isleeyahay Afrikaanka waxaan u kala qaybiyaa 3 ama 4 maanta 3 aan ku dayno wadamadii Afrika oo dhan ayaa 3 loo kala qaybinaya 3 koobaad waa wadamo himilo dheer leh dadkeegiina isku dubariday meel fog weli may gaarin laakiinse meel dheer bay dhigteen wacad hay dhigteen markaa kuwa af ingiriiska waxaan ku dhaha ambitious Africa ayaan ku dhaha kuwa himilada leh waxaa ka mid a Mauritius oo badweynta Hindiya ku taala waxaa ka mid a Botswana waxaa soo raacay 20kii sanadood ama ilaa 15kii sanadood ee ugu dambeeyay Rwanda iyo South Africa waa 4taas waayo waa qolooyinka himilada ee himiladana wax dhab ay ka tahay waayo maaha iska hadalkii waxaan doonaynaa inaan sheego 5-year plan baanu samaynaynaayo dabeedna 5-year plankii maalinta la yidhaha waa lagu dhawaaqay maalin ka dambaysa cid soo hadal qaadaysaa ma jirto laakiinse marka taariikhdooda wadamadahan soo sheegee hanqab taagaya inay meel gaadhaan 4taa wadan wixii shalay la yidhi waa la qabanayaa in badan baa maanta la qabtay berrina in kala lagu dari doonaa waana la xisaabtamayaa waa Afrikadii hanqabtaaga lahayd waaye iyo himilada qolada labaad waa qolahan sidaa waa meel dhaxay joogaan weli way bulculaynayaan oo waxyaabaha maalan aan leeyahay walaalaynta ummadda social cohesion ayaa ka haysataa in badan amase arkaantii dowladnimada ayaan la adkayn laakiinse way soo jeedaan ragna himilay leeyihiin dadna himilay leeyihiin qaarna way soo jeedaan laakiinse wacadkii may dhigan meeshii fogeyd waxaa ka mid a Kenya Tunisia Morocco Ghana marmar dad baaba Ethiopia halkaa ku soo dara inkastoo su'aal weyni ka taaganta qolada saddexaadna waxa weeyaan dhuljiif baan u bixiyay anigu dhuljiif wuxuu noqday walaalkaa dil hana arkin walaalkaa weligaa guulaystay ha arkin ama ka hor dhimo ama dil isagoo kaa hor dhintee waa dhuljiif DRC Congo ayaa ka mid ah oo barwaaqada ilaahay uu siiyeyna waddan kaloo Afrikaana una siin waxaa ka mid a Chad ayaa ka mid ah Afrika inteeda badan halkaasay soo gelaysaa Soomaalina ku dar waa dhuljiifkii waaye himilana ma jirto wax hagayaana ma jiro ya waa maalmi biraha la soo toosaya maxaa lagu soo toosay waaye kii ugu sarreeyay iyo kii ugu hooseeyay intooda badan waa sidaas waaye marka dib aan ugu noqonno arrintii labaad ee ahayd challenge-ka ama carqaladaha hor yaalla adduunka maxay yihiin cunto iyo caafimaad bii'adii oo la badbaadinayo dadkii oo waxna la barayo farsamana loo yeelayo dadkii oo la walaalaynayo adduunkii oo lala tartamayo markaad 4-5 soo qaadid
saddexdan qaybood ee Afrika u qaybsan tahay inaad soo qaadid halkay kala geli weeyaan markaas kuwaasi hore ayaa laga yaabaa inay kubadda gool ka dhaliyaan shanta arrimood ee hore soo dhaafnay kuwa labaad waxa laga yaabaa meel inay wax ka keenaan laakiinse intoo sidaa isugu duubanba inayna waxba ka keenin qolooyinka saddexaadna waa alla wax siiye waxaanu fariin u diranaa hay-adaha adduunkaan u diranaa deeqbixiyaasha ilaahay waa lagu iloobaad moodaysaa deeqbixiyaasha adduunkaan wax u diranana hadda af soomaali bay ku hadlayaan adduunkana af soomaali ma yaqaan fariintiina waa af soomaali amin waxaad ku tusaysaa halka la joogo iyo sida loo qaawan yahay marka qolada afrikaanka himilada leh ee hanqabtaaga leh iyagu waxay leeyihiin hadday sidaa ku wadaan inay adduunka wax la qabsanayaan ayaan shaki ka jirin qolada labaadna waa la kala hari doonaa baa laga yaabaa ilaahay ma kala reebay inay wada socdaan baan jecelnahay afrika oo dhan oo dufcaddaa hore hay galaan qolada saddexaadna waxaan ku tilmaamaa waddankii dad madow lahaa ee adduunka ugu horreeya gobonnimo qaatay kuma yaalla afrikee wuxuu ku yaallaa maraykanku ku yaallaa hayti meeladhufuu ku yaallaa 1790 inay ahayd baan filayaa markay wax qabteen ay faransiiska ka adkaadeen kuwii addoonsan jiray maantana fijaankii bay weli sitaanoo qarafaysanayaan sababta qayb gudaha ah iyo qayb isticmaalkii dibadda ah ayaa isku helay markaasay sidaa dhexda inta u geliyeen ayaa sidaa loo tumaya iyakuna dantoodii kuwii madaxda ahaa way garan waayeen marka dhuljiifku hadduuna ilaahay faraj soo bixin iyakuna hayna toosin halkaasay ku dhammayn doonaan 200 sannadood haddii adduunku sii jiro saasaa loo rafan doonaa markaas afrika inteeda badan haddaynu sheegano 54 waddan baa lagu sheegaa afrika 54 1 bilyan iyo 300 milyan oo qofa siday u daadsan tahay hadday u sii daadsanaato waxa berimagoya oo ballana ya inay biicaduna baaba'aso kol hadday biicaduna baaba'do adna waad baaba'day waaye haddaad biicadda badbaadinana bini aadamkii waan badbaadin karnaa waxay markaa u yihiin baylah waxay u yihiin wixii cimilada adduunku keento iyo qolooyinka adduunka ku hirdamaya xawaarahooga iyo siigadooda ayaa qarqinaya sidaa innakoo u soo dhignay markaa walaalayaal maxaa la haystaa hanti maxaa la haystaa kayd maxaa la haystaa guud ahaan adduunka kaydka ugu badan waa 3 nooc waaye mid waxa weeye dad is ogol waxna isku ogol meelna u wada socda mabda ahaan waa kaydka koobaad waaye waxaa af ingiriis lagu yidhaahdaa common civic identity waa dad xadaarad wadaaga meel u wada socda wax isku ogol dadka kale iska weheshanaya iyakuna aan ka naxayn walaalkay Dr. Cali Sheekh hadduu wax noqdo qalbigu ima go'ayo ee waan ku farxiyaa waxa tilmaama maalan haddaan soo qaado nin qoraaya oo Soomaaliya oo Nuuruddin Faarax dhaho
ayaa maalin dhawey jaayisad la siiyey weyn runtii ilaahay baa weyna dadkeennu ma garanayaan jaayisaddaa qiimaheegu wuxuu yahay qaar badan oo nuuraddiin ku kacsan baa laga yaabaa inay yidhaahaan naga dhaaf kuwaas war xataa adigoo walaalkaa la tartamaya waa inaad u ogolaataa markuu wax keeno waa inaad ku farxday ileen adigiibaa wax noqday magacii soomaaliyeed ba wax noqday markaa number one waxaa kaydka ugu weyn waa dad is-ogol isu heshanaya waxana isku ogol aragna meel wada socda waayo maxaa kale kayd lagu tilmaamaa adduunka waxaa lagu tilmaamaa hoggaan la aaminsan yahay inuu dhab yahay bal imika dhalinyartiina intiina badan dhalinyar baad isku sheegaysaan qaar baan arkayaa garhkoogii wali ciradu soo baxasa laakiinse qarsanaye aniyo odaygan cajuuskee saaxiibkaya doctor cali ya hadduuna sacuudiga ka soo noqon markii dagaaladu qarxeen oo jaamacadda isaga iyo intii hareerihiisa jooga heena bilaabin halkan dee maan fadhineen maanta waxaad garateen inuu wax wanaagsan wado doctor ibraahimna wuu ka daba qaaday iyo liibaan iyo intii ka yarayd markaa hoggaan lagu kalsoonaan karo laguna kalsoon yahay meeshu kuu wado waxa uu sheegayo inay xaqiiq tahay oo dhab tahay waa kaydka labaad waayo lacag iyo xaakamaan hadal hadda bal eeg hadda dad is ogol oo wax isku ogol oo haddaanan anigu joogin walaalkay meesha ha jooga oo is odhanaya kow hoggaan la aaminsan yahay oo wuxuu kuu sheego had og tahay wixii danta guud inay tahay ood adiguna markaa fulinaysid trust in leadership ficilkii hadalkii hoggaanku iyo ficilkii intii bini aadam isku soo dhoweyn karaya labadaasi isku soo dhoweeyey ayna kala fogeyn intuu halkana wax ka sheego ficilkiisuna ama ficilkeeguna wax kala yahay hoggaan weeyaan ta saddexaadna weeyaan ilaa 10 baan ka dhigi karnaa laakiin maanta 3 baan doonayaa inaan ka hadlo waxa weeye is-aaminsanaantaa dadkii is-aaminsan yihiin iyo hoggaankaa lagu kalsoon yahay wuxuu had iyo jeer dhisaa hay-ado arkaana dowli institutionskii waddanka ayay dhisayaan markaa hadduu madaxweynuhu liico institutionkiiba meesha jooga saddexdaasi ayaa waxaa hanti laguu sheegayo ugu muhiimsan inta saddexdaa haddaanad hayn khayraadkii ilaahay ku siiyey ayaaba ku qarqinayood ku dhimanaysaa dee waa congo oo kale DRC ama qolooyin haynu walaalanahay oonan maanta carabka ku dhufanayn saddexdii markaa maxaan ka haynaa innakoo hawlihii horena soo marnay garanana tilmaan baan ini siin halkan waa ta albaabada lanoo xidhay lockdown waxaan la dhaho xayiraad Sweden lama xayirin dadkii maxaa loo xayiri waayey ilaan waa laba lugoodlaha caddaanka iyo laba lugoodlaha madowga ee halkan wada halkaana jooga Swedenna jooga halkanna wada jooge Sweden waxay u xayiri weyday ninkii prime ministerka ahaa iyo dowladdii waxay sheegtay ayay dadkoodii rumaysan yihiin sidii u dhaqma la yidhi ayay u dhaqmayaan markaasi askar in suuqa la keeno oo la xidhxidho looma baahna markaas dadku isagaa isxukumaya markaas waagii qolooyinka maxaakiimtu joogeen xamar ayaa dood baan la galay maalin nin qolooyinkan waalwaalana hay dileen ayaa intuu maalin meelana ka wada fadhinaa 4 5 6 qof oo qolooyinkaas aan ahayn ayuu yidhi ina samataro kitaabkan ku xukumanaa meesha markaasuu kitaabkii sidaa u lulay
marka aniguna waxaan marmar qofka kaftanka ayaa wax lagu dhacsiiyaa waxaan ku yidhi war xaaji kitaabku iyuuna beerfiriqoobine ma garanaysaan beerfiriqowga qolooyinkiina dhalinyarti waxa weeye markaad haddaad biyo badan intaad cabtid haddana had orodid halkaasaa calooshiba lulmas way ku xanuunaysaa beerfiriqowgaan odhan jiray kitaabku iyuuna beerfiriqoobine bal horta nasiyo dhulka dhig baan ku yidhi kitaabka markaasaan ku yidhi bal ka waran haddaad tidhaahdid halkaad leedahay kitaabkaan ku xukumanaa maxaa kuu diiday inaad tidhaahdid kitaabkaan isku xukumanaa ilaan waan wada ogolnahay diintii soo ma markaa reer Sweden madaxdoodii iyo hay-adihii dawliga ahaa oo muddo badan laga soo shaqeeyey oo la og yahay waxay kuu sheegayaan wixii danta guuda ee waxa ra'iisul wasaaruhu ama madaxweynuhu doonaya inayna ahayn gaar ahaan markii la yidhi cudurkani waa caynka sidaasaynu yeelanaa haddii kale waa inaynu soo xidhxidhno sidii ayaa dadkii caadigii u dhaqmay inteena ilxayiigta meesha degan mooyaane adduunkii kalena waa laysu kari laayay marka waa in xoog lagu muquunayaa marka waxaa ka baxday waxaa laga yaabaa qaarkood inay leeyihiin awooddii arkaanta dowladnimo inay leeyihiin laakiinse aaminaaddii baa dhimatay iyo walaalnimadii afriki markaasi hadalka waan soo yar gabagabayn kayd la'aantu meesha ka dhacday uu koronana qaawiyey si loo arko sida South African ka hadlayaa maqaalkaan ku qorey waxay ka caydhowday saddexda arrimood bay ka caydhowday oo kayd aynaan lahayn meel iyo dhif mooyaane Masar ka soo qaad Senegal gee Soomaaliya gee halkan kaal inta badan waa caydh waaye reer galbeedka Soomaaliga waxaan oran jirnay waa mud markaas oo markaad qaawan tahay waaye inay mar ku saarnayn saddexda arrimood oo ah awoodda ummadi leedahay ee khayraadna samayn karta soo saari karta ka faa'iideyn karta kaydin karta saddexdiiba caydh ayaa laga yahay maanta corona markaa wuxuu keenay sidaan South Africa ku sheegay inuu adduunkii oo dhan tusay inaan qaawanahay markaas su'aashu waxa weeye inaku ma arki doonaa inaan qaawanahay kuwa madaxda ugu sarreeya iyo kuwa ugu hooseeya ma arki karaan inaan qaawanahay markaas waxaan ku soo gabagabayn maanta waxaad moodaysaa markay noqoto dowladnimo nooceeya ayaa dadka isku wadi karta saddexdii arrimoodeen haddeer ka hadleen aan kasii ambaqaadayo waxaa la isku hayaa waa laba model waaye model bi af Soomaaligan garan lahay calo model muxuu noqon talo Dr. Ali مثلا markan leeyahay waxa weeyaan tilmaamo noqonayo wax lagu daydo amal muxuu noqon talo af Soomaaliga isaga wax ku dhaama jire sidaas af Soomaaliga inta uu soo kana daro hor uga socdo هو كودا هذا عجوز يسعود إليه يستدعى لما الله يسكوها يا لما مرة المركز فوانا نحلها مانت وحويا مثل ليه هاي سيلدو هفرناتو باع مشركو هفرناتو ورشدو هفرناتانو حكم كنا آية الدولة حكومة سانا هيراتو وحان رأي قلبات كالو بيرها فري ماركت تاسو وامد ترامب يوحي لمدها هيكو عانا ماليا القاب إنه يقول له يا قاب تكلنا وحويان سيلد حكم الوايا سيلد حكم الوايا وين السيلد ده واحد دون سو سارين دي لان قارب سيلدها سنبي كان waxay ka yihiin balaayo dhacday oo gabowday ka gadi marka waa inuu jira xukum maamulaya
sayladdu si ay u soo saarto wixii dadweynuhu u baahnaa waa labadaasaa la isku hayaa af ingiriiska waxaa lagu yidhaahaa free markets iyo governed markets waxaad moodaysaa maanta dowladihii lahaa waxaanan ku tilmaamo saylado la maamulo ama governed markets inay markuu corona yimiday inay ka karti bateen kuwii kale tilmaam haddaan ina siiyo Sweden waa waddo cankaas sayladdu waxay doonaysaa ma soo saari karaysaa shuruuc baa wax walba loo dhigay waxaas inuu sax yahay markuu qofku doonayo inuu iibsado inuu rumaysan yahay waxaas ta kalena waxa weeyaan waa meeshii lagaa helo waayo sun baa lagaa galay haddii la doono labadaas ayaa la isku hayaa marka haddii hayn doonayno waa hadalka gabagabadiisii afrika haddaan nahay ama soomaali haddaan nahay oon himilada yeelan karna ama han leenahayba maxaa waxa weeyaan sayladda waa inay xukuntaa waxa bini aadamka meeshaa ku nool uu aad u qiimeeyo waxaan la dhaho social values maxaa waxyaabaha soomaalidu hay tidhaahdo waa brimagoyso maxay noqon karaan kii kaa liita inaad u naxdid wiilka iyo gabadha iskuulka aan haysan in iskuul lagu daro dadkaagu qaarna inay dhergaan qaarna gaajoodaan waa ceeb waaye kibirka waa lagu kufaayo kaana ha la ogaado ayaa hore loo yidhi marka waa inay jiraan values ama qiimo hagaya dowladnimadu waxay tahay waa inuu jiraa taas unbaa keeni kara markaasi inay timaado dowlad wax asturi karta oo saddexdii arrimoodan ka soo kacay ahaa dad isogol hoggaan la aaminsan yahay iyo allahuma salli calaa maxamed iyo arkaantii dowladnimo oo awood karti la geeya waxa kuwaa keeni karaa iimaan ku dhisan qiimayaasha qadarinta mudan aynu ka tagnay walaal haddaan nahay soomaali iyo afrika kelmadda ugu dambayseen markaa odhanaya waxa weeye maahmaah yar baan ku darayaa oon tarjumaya af ingiriis baan ku qoray af soomaalian ku tarjumaya horta af ingiriis baan ku sheegi waxa weeye power without a strategy power without goals and strategy and vision is the converse of leadership. Power without goals, strategy, and a vision is the converse of leadership. Afsoomaali maxay ku noqon waxa weeyaan awood ama xoog aan qasdi lahayn qorshana lahayn xoog awood qasdi aan lahayn qorshana aan lahayn arag fogna aan lahayn waxa weeye madaxnimada oo caydha weeye tarjumaddaa kuma faraxsani laakiinse waa ta ugu dhoweyn ku samayn kara maanta ilan odayga cajuuskii halkaa iga eegayo ha kufee iska dhaafee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بروفيسور عبد الرحمن عبد السمتر
aadaan ugu mahadcelinaynaa maadaama uu si aad detail ah uu noogu faahfaahiyey waxyaabaha saameeyey in Afrika uu cudurkan coronavirus si ka daran bulshooyinka kale u saameeyo oo ay ugu horeyso qaawanaanta bulshada yani weakness awal hore jiray waxaan markan su'aalaha u furaynaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka qofkii su'aal qaba gacantuu taagi karaa qofkii su'aashiisa qoraal ahaanna waa loo soo gudbin karaa qayb waxaan leenahay Q&As marka qofkii ku soo qora qaybta Q&A-gana maxaa la yiraahdaa su'aashiisa ana halkan ka weydiinaya qofkii raba isaga inuu codkiisa ku weydiiyana waan u furaynaa codka si uu su'aasha u weydiiyo professore hal su'aal oo nala soo weydiiyaa jirta oo ah kayd la'aanta jirta oo ay ugu horeyso kayd la'aanta cuntada ay leeyihiin xaguu ka yimid mas-uuliyaddaas ma shacabka la saarayaa mise dowladda Soomaaliya sidee loogu heli karaa kayd su'aashaasna soo weydiiyey walaal ku jira oo la yiraahdo Riiraash Axmed marka su'aashaas aan ku bilowno inta kalena su'aalaha kala dadkan shukran waad mahadsantahay Riiraashna wuu mahadsan yahay waagan macalinka yar ahaa ee antimaha lahaa garkayguna mudooba ayaa sanad waxaan ka shaqeeyey shabeelooyinka dhowr biloodna jowhar baan joogay dhowr biloodna shalambood iyo jannaali iyo dhulkaasaan joogay waa sanadkii ka horreeyey markay qabtu dhici doonto marka waxaan raadinayay markii hore waxaan ka soo shaqeeyey xoolaha iyo waxaa la dhoofinaya waqooyi ayaan ka soo shaqeeyey ani iyo wiil arday ahaan jiro Maraykan ah waxaan markaa isku dayay inaan fahmo maan garanayne waddanka intaa leeg in badan waa lama degaan waaye tiradeennuna way yar tahay maxaa hay ku dhacday wixii magaalada waxa lagu cunaa een hilib ahaan inta badan inta dibadda ka yimaado marka xoolihii waa la dhoofinaya xoolihii protein waxaan la dhahay sidaa markaasaa dacas iyo marooyin iyo bariis iyo waxbaa lagu soo gadaya iyo wax kale halkan koonfurtana muus ayaa la beerayaa muuska intii 90% iyo wax ka badan waa la dhoofinayaa manaafacaadkiisa intiisa badanna waddanka kuma soo noqonaya marka waxaan su'aashan dabagelinay waxay ahayd mayna qumanaateen in xoolaha la dhoofinayo kolka lacag laga helo lacagtaasi la soo geliyo wax beeralaydu hay u baahan tahay si beeralaydu bariiskii iyo rootida wixii laga samaynayo burkii iyo waxaasoo dhan intay u beeraan dabadeedna labadeennaba xoolo dhaqatadii iyo beeralaydiiba anu wax badan marxino dadkeennina nafaqa u helo ka jaban wixii dibadda laga keenay markaa kayd la'aanta laba arrimood baa keenaya Soomaalida laba qof ayaa wax soo saari jiray inta kale iyakaan ku dul noolay reer guuraaga hilibka iyo caanaha iyo subagga keenaya iyo beeralayda keenaysa digirta iyo galleyda iyo haruurka iyo masagada iyo wixii la mid ahaaba wixii macawista intay iska saareen surwaal magaalo intay ku xidheen reer magaal ismooday ayaa kuwii quudinayay qawadaya oo xaqiraya oon xataa waxba u tarayn si wax soo saarkoogii kor ugu sii kaco markaa qaawanaanta waxa keenaya markay noqoto cuntada oo kale waxa keenaya laba arrimood faham la'aan qolooyinka
maamulka magaalooyinka ku haya madaxda ah aan fahamsanayn waxa ay tahay baahida ugu weyn iyo sida waddanku u soo saari karayo. taasi waa mid. iyo qolooyinka magaalooyinka degana wax haysta ilaa magaalada inteeda badan waxba ma haysatee oo doonaya inay ku daydaan oo Afrika oo dhan waa laga siman yahay taasi. koorku Clinton xidhan yahay ama Obama xidhan yahay ama Johnson xidhan yahay iyo saacadu xidhan yahay iyo sidoo uu xaragoonayo inay u xaragoodaan iyagoo dadkoogii qaawan yahay. waxa kala kacaya markaasi waxaan lagu yiraahdo elite himiladoodii iyo himiladii dadka ayaa kala tegaya. taas ayaa keenay inakoo kalluun leh oo hanqabo haddii si wanaagsan iminka Chinese-kaaba la siiyo dee xaalufin doonadii in gabadh iyo oday iyo islaan iyo wiil kastoo Soomaaliya 10 sannadood gudaheed in xabad kalluuna qof walba maalin kastaba cuni karo oo wax allaaliyo wixii protein u baahnaa halkaa ka helayo. xoolihii haddii la iska soo dhaafado markaan ka soo shaqeeyey Jowhar bariiska halkaa laga soo beerayay Soomaaliya xamar laguma cuni jirin inteeda badan oo waxay odhan jireen ma cadda. hadda waa isaga ka nafaqa badan waxa la yidhaha brown rice. waxay rabaan kii la soo qoray ee sonkortiuni ku hadhay ayay wax wanaagsan u haystaan Soomaalidu. bariis waan beeri karnaa, digir waan beeri karnaa, dee laakiinse beeraleyda in la dhaho ninku soo beera maahe waa in la awoodsiiyaa. nin hanu saaxiib nahay oo Dr. Xuseen Macaw la dhaho oo xamar iminka degan ayaa muuraha ka shaqeeya oo hawlaha dhaqaalaha soo bartay agronomy wax af Ingiriiska lagu yiraahdo. hal laga darso Xuseen wuxuu samaynayo. marka qaawanaanta quudku halkaasuu ka yimid. waad mahadsan tahay. Professor aad u mahadsan tahay. su'aalo kale dhowr su'aalood oo kale la soo weydiiyay way jiraan. waxaa ka mid ah su'aalaha la soo weydiiyay Afrika maadaama ay sidaas u qaawan tahay maxay u baahnaan lahayd isdiyaarin intee ilaa ay u baahnaan lahayd si ay cudurkan uga badbaado iyo sidoo kale su'aal kale oo ah saameynta mustaqbalka dhow ee siyaasadda iyo dhaqaalaha Afrika cudurkan ku yeelan karo marka uu dhamaado. okay waa su'aal adag wanaagsan. maqaaladahan ka qoray South Africa halka ugu dambaysa waxaan ku qoray waxaan yidhi cudurkani fursad ayuu keenayaa. fursad dhiilana wuu keeni laakiinse dhiilada kelmadda af Ingiriiska waxaa la dhahaa crisis ayaa af Ingiriiska kelmad lagu dhahaa. crisis waa muddi laba af leh. usually had iyo jeer muddidu dhinacunba wax gooyo dhinaca kalena waa da iska waxba ma goyso soo maha. laakiinse kelmaddan crisis xikmad ahaan waxay uga jeedaa theory ahaan inay muddi laba af leedahay. afku gowracaya iyo afku dhisaya. markaad dhib ku soo dhacdid dhibtaasi haddana fursado ayay abuuraysaa haddaad arki kartid weeye. markaa South Africa waxaan ku qolin karnaa asxaabta nahay jaamacadda iyo dowladda iyo maqaaladda iyo ka abaarayay. waxaan ku yidhi dadkaa qaawan ee waddankooguna khayraadka badan leeyahay ee laakiinse la duufsiiyey 350 sannadood la tumayay. boqolkiiba markii dowladdan hortii hay timiday 94kii dhulka caadiga ee Jamhuuriyadda South Africa hay leedahay buur iyo banaanba boqolkiiba 87 caddaanka ayaa lahaa. caddaankana tiradoodu 13 boqolkiiba ayay ahaayeen. markaa 13% ayaa qaatay 87% dhulkii. dadkii Afrikaanka badnaa ee boqolkiiba 80 dhaafayena
waxaa lagu soo ururiyey dhulka ugu liita meelaha ugu xun ee jararka ah ayna waxba ka bixi karin oo 13% lagu soo ururiyey imika maalin dhaweyd mar intaan xakamahani imaneen balaayadan iman ayaa aniga iyo nin iga weyn oon walaalnahaa halkan igu yimiday markaa muddaanu halkan soo iman waagii hore igu iman jiray makmalaha 12 sannadood igu iman uu yimiday markaas yidhi warnehu bal dhulkii waagii hadi tustay imika indhuhu ii furan yihiine isoo tus haddana gaari baanu kaxaysannay waxaanu soconnay 4,000 kilomitir ayaan waddan ku wareegnay annakaana wadanna gaariga buur iyo bannaan iyo meel walba soo mar badii soo arag waxaad arkaysaa beero masaaxadoodu ay tahay 50 mayl murabbac iyo meel dad fara badan oo madoobi joogaan oon 1 mayl oo murabbac aan ahayn markaa qolada gaalada iyo xulafadooda reer galbeedkii waxay ku dacweeyaan waa dhaqaaluhu uu dhisan yahay yaan la taabanin haddii la taabto afrikada kale aad la mid noqon waa la gaajoon doonaa markaa waxaan ku tilmaama waxaan ku yidhi si xeeladooda loo buriyo waa inaan samaynaa mid ilaan beertan 50 mayl murabbaca ah dhabarkiisa wadaadkan cadi kumuu dhisin waxaa degan 50-70 qoys oo afrikaana oo meesha lagu falayay 300 sannadood jad bijad lagu soo falayay taas ayaa keentay barwaaqada la arkayo markaas si kan cadna aan loo eriyin una sabool u noqon kuwan madownahayna ku balanbalin baskaahay ku jiraan waa in beeraha caynkaas laga dhigaa waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho share companies dadka meesha ka shaqeeya iyo kuwa sheeganaya waa inay wadaagaan carruurta hay dhalaanna iskuullo wanaagsan inta loo dhiso si hay shaqooyin kale u raadsadaan oo injineer iyo dhakhtar iyo macallin iyo wixii kale hay noqdaan markaa dhaqaalihii ma gilgilmayo kii calool weynta ahaana caafimaad buu helayo calooshii baa ka yaraan baan ku idhi oo uu dhuuban sida Dr. Cali aniga qorooyinkiinan dhallinyartee naga orod badinaysa ma ahay caliye kuwii macaluusha ku korayey ee dhiiggoogii la cabbayena way noolaan oo mahadnaq bay hayn doonaan waa la isku keeni markaasi waa haddii la leeyahay wixii aan ku soo gabagabeeyey ee ahayd maxay yihiin qiimayaasha ama valueska dhuuxa inoo ah aynu doonayno inaynu wadaagno walaalkaa oo barooranaya ma faraxsanaan kartid marka ninkii caddaa ee boobay waxaan yaan la eryin kii madoobaaye waxaan lahaa ee la eriyeyna ha la soo celiyo meel dhexdhexaada ha la isugu keeno taas ayaa keeni kartaan ku idhi in la helo barwaaqa sooran cusub oon kan calool weyn tartiisana aan ahayn kan macaluushana kor loo qaado meel dhexe la isugu keeno ta Soomaalida haddaan u imaado waxa weeye ilaahay hayna gaarsiiyo maalintaynu dowlad quman helno dowlad iyo wax u eg maynaan arag muddo dheer waxa weeyaan dadka kalluumaysiga beeralayda iyo xoolo dhaqatada waxaan qabaa haddii farsamo quman loo dhigo ya inaan cawrada ka bixi doono marbana haddaad cunto cuntido calooshaadii nafaqaha hesho cudurrada intiisa badan waad ka adkaanaysaa xadaaraddu waa 3 arrimood ayaa sal u ah 1 cunto iyo biyo 2 nal energy koronto iyo jid korontadii iyo nafaqadii iyo jidkiina tacliin baa keenaysa inta la leeyahay batrool baa la helayay
والبترول wax ka weyn buu ilaahayna siiyey bini aadam garaadkii la fajaasay oo wax la geliyey oo la carbiyey de Switzerland ma laha de petrol ma laha Japan petrol ma laha adduunkana iyaga kow ka ah markay dhaqaale noqoto marka petrolka waxay u raadinayaan waxa weeyaan si luf degdeg ah ay u helaan dabeedna environment ay ku baabiyaan weeye marka awradaas sidaas ayaa looga bixi karaa walaalkay tan aan muddada soo dhowna maxay kula tahay haddii had iska dhigtid wax faalin karaa ilaahay baa mustaqbalkooga bini aadam ma ogaan karo laakiinse marka waxa soo martay had aragtid iyo waxa jooga markaad aragtid marka waad ishaari kartaa waxa suuragal noqon kara ama suuragal aan noqonay Afrika saddexdii aan u qaybinay hadduuna madaxdeeda ilaahay soo hadayn dadkooguna intay is abaabulaan hayna odhan ma ogolaanano waxan hayna isku ogolaadaan in la wada noolaado walaaltinimo lagu noolaado saddexdaasi unbaa sii soconaya qolo tagtay wan looran doonin war meeshan Afrika waa uma eka qolo rafanasa oo waxaan la dhaho qaar khaasarana waxa weeyaan bini aadam qaarka tamana waa dameer waay bal adigu haddaba de dameer iyo bini aadam la isku kabay meel geed iyo de rafat iyo macaluul Haiti 200 sanadood dabadeed in la noqon karo jidka la qaadanaya ee madaxda iyo institutionska iyo dadkoo urursan oo edeble oo is ogol ayaa kala saari kara midka mustaqbalku noqonayo inta kalena ilaahay baa og aad iyo aad u mahadsantahay professor jawaabtan waafiga ah su'aalo kale oo jiray ay qaybo ka mid ah ka jawaabeen hadda waxaan rabaa panelkeena qaar ka mid ah inaan siiyo si ay su'aalo ku weydiiyaan waxaa Ankara caasimadda Turkiga nagala soo qayb galay Ustaad Cabdirashiid Cali Caadle markuu Ustaad Cabdirashiid soo dhawow aad iyo aad u mahadsantihiin professor Cabdi Ismaaciil Samatar waan salaamayaa professor Ali Sheekh dhammaan saaxiibada haddaad aad iyo aad u mahadsan yihiin programkan wanaagsan ee maanta noo qabteen runtii su'aashayda markaan horu galo professorka aad u mahadsan yahay runtii kayd waxaan ku naqiinay xoolo lacag iyo maaragtay iyo raashin iyo meelahaas ka fikir jirnay laakiin hadda meel kale naga tuso runtii saddexdan arrimood ee uu sheegay wuxuu sal uga dhigay social values su'aashiidu marka waxay ku qotontaa social valueska maadaama hadda Afrika markuu saddex u qaybiyay qaybta uu ku sheegay inay dhulka jiifto oo saddexdaanba ay aan kaydkan lahayn waxaan u fahmay waxaan jirin social valueskii salka u noqon lahay saddexdaas arrimood marka social valueska sidee lagu abuuri karaa yaa abuurayo xagee ka imaanayaan sidee ku samaysmayaan su'aashiidu waa taas waa mahadsantiin waad mahadsantahay Cabdirashiid horta saddexdu qaybooda Afrikaanka mawduuc qaawana maanta marka tagtid Botswana dib way jirtaa oo dhib ma maqnaa laakiin jaamacadeeda oo imika muddo 20 sano horteeda ka soo shaqeeyay oo buugna ka qoray maybe Cabdirashiid you want to read that book si aad u ogaatid siday u abuureen waxan buugga marka af Soomaali lagu tarjumo magaciisu waxa weeye mucjisada Afrika af Ingiriisna wuxuu ku yahay an African miracle marka Rwanda 94kii 1994kii way qaawanayd maanta way labisan tahay ma oran karo laakiin way asturan tahay marka waa la kala baxay South Africa dadka madow
boqolkiiba 80 ku dhow way qaawanaayeen maalintii 94 markii Mandela soo baxay. maanta in badan baa asturan, waxaana dooda ka socotaa dee anigoo Soomaaliya oon South African ahayn maqaalkaas iyo qaarka hore ka qorayba oo mudaya dowladda iyo kuwa eliidka lagu sheegayo. waxaa suuragal iiga dhigaya Afrikaannimada oo la ogol yahay. مثلا مقالka markan hoosta soo gabagabaynayo in leeyahay waxaan ku qorayaa kelmadaan ku oranayo our country can do better than this. waddankeenu waxaan wax ka wanaagsan ayuu samayn karaa. our country baan idhi, maan odhan your country maan odhan. cid igu qabsatayna ma jirto. marka ra'yi ahaan waxaad arkaysaa inay wax jiraan halkan oo dooda ka socotaa dee waa dood waafiya waaye. waxa keenay in Zuma laga qaado oo la yidhi tuug yahow naga baxa. dad baa u halgamay, madow u badan, caddaano ku jiro, hindina ku jirto. ma qaawano markaa iyagu. Mauritius ma qaawano, waxa weeyaan dadkooga intiisa badan shaqa loo helay. shaqooyin private sector-ka ah ayaa abuurmay markay hanaankii dowladda u dhigtay wixii regulationskii iyo shuruucdii wixii u dhigtay ayaa la yidhi haddaba foofa. laakiinse xaydaankaas gudihiisa ayaad ku dhex shaqayn kartaan, waxaad doonaysiin ma samayn kartaan. ilaan haddii kale masaakiintay lafahooga cuni doonaan. markaa social valueska iyo abuuri karaan. maalin hore waxaan malaynayaaba inaan joogay jaamacadda Muqdisho University inay 4 sannadood 3 sannadood horteed hayna filaya. marka walaa yidhi wadaniinta Soomaalidu way wadan jecel yihiin, waa been baan ku yidhi. wadaninimada laguma dhashee waa la bartaa. haddee aabbaha iyo hooyada Ismaaciil Samatar iyo Xaliime Cabdillah haa Soomaali ahayd. Soomaali waan ahay haa in that sense. laakiinse ma sidaa dhuuxayga iyo maskaxdayda ma sidaan mabaadi'da Soomaalinimada ka tarjumaya. kuwaana laguma soo dhashee waa la bartaa. 3 meelood baana laga bartaa, meel kale lagama barto. guriga, iskuulka, iyo doodaha journalismka iyo waddanka ka socda. 3 meelood baa laga bartaa. 3 hadday dumaan waxa weeyaan qofkii indhaha la'aa ee hagaya ka aan indhaha lahayn isaguna. marka waxaa la leeyahay wadaniyin baan nahay, waa been waxaas. way yaryihiin maanta wax wadaniga garanaya qiimihiisa waddankeena. marka haddii la doonayo valueska in la abuuro waxa weeyaan kow haddii iskuulle hala furo, tacliin waafiya oo tayo leh hala abuuro. laakiinse dee taasi waxay u baahanaysaa marka hore wax dadka bal mar uun horta soo ambabariya. ilaa waa noomul kahf ayaa lagu jiraa. waxaan kuu lahaa waxa weeyaan madax la aaminay inay meesha timaado. markaasuu dadku dhegaysanayaa, markaasaa amuuraha halkaa lagu falanqeeyo ayaa iskuulladii la waraabinayaa. laakiinse kuwii madaxda ahaa ama iskuul madaxa ka ahaado ama ummadoo dhan madaxa u ahaadee, hadduu laba aflaynayo dee wiilka suuqa jooga iyo gabadha way arkaan riwaayaddii baa socotaa lagu odhanaya. marka innakoo kale waxay nagu dhacay iyo Afrika in badanba waxa weeyaan meesha iliishaasi waa in la daweeyaa weeyaan. oo marka uu yidhaahdo villa Soomaaliya hay tidhaahdo sanadkan dabayaaqadiisa waxaan ku ballan qaadanaa, iska hadal maaha ya, in dadkii soo dadaalay waxbarashada ku soo dadaalay intii
hannu aad u sii qaawanayna dowlad ahaantu inay nahaysay jidkii hay soo mareen in la adkeeyo oo la waraabiyo iskuulladaasi kuwii kalena dib loo furo oo dabeedna laga dhabeeyo sanadka labaadna yidhaahda markuu waddanku isku furmo ya beeralayda kalluunlayda iyo xoolalayda saddexdaasi daryeel aanay hore u arag waa in la tusaa si wax soo saarkoogu kor ugu kaco kuwa xamar jooga iyo kuwa boolo burdo jooga iyo kuwa sayrac jooga iyo inta u dhaxaysaba si ay nafaqa u helaan maalin waxaanan weligay iloobeyn waxaa laga yaaba qoloyinka ayagan dibadda ka yimaadayna waxaa isku cusub yihiin laakiin Dr. Cali oo kale uu maalin walba arkoona dee hay ka badatay anigoo ninaan saaxiib nahay soconna Maka Mukarrama ayaa nin baan hor socda wuxuu riixayaa gaari gacan buu riixayaa waxa gaari gacan kaa saaran kuwa iyaga cunto wanaagsan cunay ma riixi karno dididka iyo diifta ku taalla qofkaasi iyo xididadiisii oo dhabarkiisa ka muuqda usually dhabarka marka qofku qaawan yahay xididkiisa lama arko gacmaha iyabaa la arkaa xididka soo maaha dhabarka ayaa xididadiisii oo soo mutuxan wax arkaysaa iyo lafi in la dhaho abadan anoo madax sheeganaya walaalkay iyo walaashay inay sidaa u ekaadaan ma dhici karto markaa cuntada waa inaan soo saarnaa iyaka markaa la siiyaa investment incentive waxaa af ingiriiska lagu dhaho iyakana habkii loo dhigo markaa waxaa imanaya qowlkii iyo ficilkii baa is yeelanaya dadku markaa waxbay dhegaysan hadduu maalintuu Dr. Cali iyo walaayihii abuurayeen Muqdisho University hadday intay yidhaahdaan arday kasta waxaanu ka qaadanaa $400 dabeedna waxay barayeen boocbooc noqdo dee ixtiraamku wadaadku haysto maanta muu haysteen waxa loo rumaysanayaa wixii uu yidhi ayuu ka dhameeyey waayo markaa waa la dhegaysan aasaaska social valueskan ka hadlayaa waa halkaas weeyaan ama qoys ha noqoto ama nin mudiiroo meel jooga ha noqoto ama madax sare ha noqoto taas haddii la kari waayo tilmaamta ugu dambaysan ku siin walaalkay waxa weeye Cabdirashiid oday talyaani ah oo qoloyinkan garabka bidixda ah ayaa Mussolini waa jeelka ku riday markaa jeelkiibuu ku qoray buugga waxaa la yidhaahaa prison notes ya duruustii jeelka camal ayaa tarjumaddu waxay noqonaysaa tarjumadu wanaagsan maaha laakiin saasay u ekaanaysaa iminka meeshaa wuxuu ku qorayaa wuxuu ka sheekeynayaa ummaddu society ama dowladda dadku waa makiinadoo kale injinka markaa waa in saliid lagu shubaa petrol lagu shubaa soo maaha si u dhaqaaqo wuxuu yidhi markaas qasabadi iyo waxbuu leeyahay injiinkii markaa petrolkiiba taangiga lagu shubaya halkaasuu qasabad soo raacaya meel buu ku dhacaya dee bahalkaasi petrolku ma riixi karo wuxuu yidhi waa inay jirtaa meel marka sidaa loo rogo xooggaa mustaqbaliyan ah potential energy ka dhigi kara xoog imika socon kara marka baabuurka waxa ku jira waxa la yidhaaho pistonka qarxinaya petrolkii markaa xoog u bedelaya marka pistonku waa leadership that's what we were talking about haddii la waayo taasi ama waalid ha noqoto ama macallin ha noqoto ama madaxweyne ha noqotee dan waa rafadkaa lagu jiri doonaa walaal aad iyo aad umahadsan tahay professore waktigii programka ugu talinayna wuu naga dhammaaday marka waxaan gelaynaa su-aalihii ugu dambeeyey iyo qaybtii gabagabada waxaa halkan su-aal qaba walaalkay
cabdikariin cabdulle marka cabdikariin soo dhowow waa mahadsan tahay brother xasan mahadcelin iyo salaan kadib professorka waxaa weydiin lahaa maalmahan dambe waxaa la hadal hayaa dunida marka la eego post corona kadib dunidu siday noqon doonto iyo siyaasadda maalin dhoweedna waa tan madaxweynaha maraykanka uu dhahay globalization is over marka madaxweynaha turkiga iyo dowladda turkigana waxay si ku celcelis ah mar walba u sheegaan nidaam cusub inuu samaysmaayo corona kadib so nidaamkaas cusub ee samaysmaayo haddii uu samaysmaayo muxuu noqon doonaa doorka Afrika iyo Soomaaliya intee ka geli doontaa maxaana kaga aadan waa maasantiin qof qaawani damiiska ma soo fadhiisan karati markan soo gaabiyo jawaabti qof qaawan laakiin saan yar faahfaahin buukan maalin dhaweyd akhriyey oo oday macallin ah oo Maraykan u qoray waa kaas waxaa la dhahaa people power and profits casharkeenna maanta meel baan isaga soo xiganayay laba globalization ayaa jira mid waxa weeyaan ka ugu xoog weyn oo boob cid walba Trump ku wadaa waa kaas waay cid walba boob cid walba waa inay adiga ku adeecdaa weeyaan tuu wada globalization kalena wadaadkan macallinka midu ka hadlayo oo odhanaya wax badan baa adduunyada isku furantay laga faa'iiday laakiinse waxa afka u dhigtay faa'iidadii 9% dad tiradoodu hay tahay 1% ayaa liqay Maraykan gudihiisa maanta aan tilmaam ku siiyo 3 nin ayaa ka lacag badan oo ka hanti badan 165 milyan oo qof oo Maraykan 3 qof Bill Gates Warren Buffett iyo ka wadaad kale Amazon 3daas ayaa ka lacag badan Maraykanka dadka ku nool nuskood waxoogoo dhan haddii la isku weeyo kuwan baa ka taajirsan that's one nooc globalization ku waa kaas nooca kalena Yurub baa uga dhowo waa mid la odhanayo kuwan sida degdega lacagta u urursanaya waa inay cashuurtii bixiyaan ileen globalizationka waxa suuragal ka dhigay iyo internetka iyo electronics iyo waxaan oo dhan hanti dowladeed oo jaamacadaha Maraykanka iyo qaar kaleba la geliyay iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaan ka dambeeyay ininku dee dabakafuul baatiin qolooyinkiina ku lacagaysanaya marka waa inaad cashuurtii bixisaan si dib loogu celiyo lacagta meelihii khayraadka marka hore soo ababiyey kaasina waa globalization nooc kale ah weeyaan waxaan isleeyahay Trump ilaahay kama dhige ma soo noqon doono sanadka marka waxoogaa miyira ayaa laga yaabaa inuu Maraykanku soo noqdo laakiinse miyir sort of resini kuma soo noqonayo Maraykan muddooyinka ilaa dadka Maraykanku ay kacaan 165 milyuunan kuu sheegayay 3 qof ka lacag badan yihiin ay yiraahdaan annaka codkii la soo ma jidkan lama mariyo kaasaa la maraya waana kii Maraykan khayraadka marka hore soo siiyay 5,000 iyo jarjarka jaamacadood dhisay waa ka qasweeya marka wuu imanayaa post corona world way iman doontaa laakiinse waa la hirdii doonaa yaa hirdii doona Yurub way iswadataa marka Ingiriiska imika laga saaro waana 450 milyan marka Ingiriiska laga saaro waayo waa cudud lixaad le waayo saylid lixaad le waayo Maraykan
iyo Canada oo ku daba dhuumata inkastoo waayahan dambe xagga Yurub ay u soo bateen iyo Japan iyo wixii la mid ahaa China oo halkaas soo fadhida oo iyadu intay tashatay gudaheegana ka tashatay adduunyadana ka tashatay qolinka South Africa bandhawd waxaan ku yiri war heedaha South African Airways way saaqidaysaa kuwii nalka sameynaya dawladdu lahayd way saaqidayaan way baaba'ayaan maxaa ka dhigay waxaynay dawladdu leedahay inay saaqidaan waxay dawladda maxay Chinese ku leeyahayna inay adduunka ka gooshaan oo lacagta adduunka ka soo urursadaan oo China ku soo celiyaan oo sidaa ku faa'iisaan maxaa keenay baa ku yiri waayo kuwa ka soo horjeeda waxay dawladdu leedahay hal iska baabiyo saylada loo furo haddii saylada la furo kuwii caddaanka ee lacagta markii hore haystay ayaa inta hadhana qaadan doonta madowga markaa geed baa lagu xiri doonaa markaa China halkan fadhida Africa iyo Latin America iyo Asia kalaba iyo Middle East ya waa lufluf weeye qofta shan waayay waa loo talintay markaa cid garan doontaa ma jiro design-ka ileen waa la doodi doonaa waa la ficiltami oo waa la xagaltami oo waa la isjiijiidan oo waa la baayactami ma ogtahay baayactankaagu inuu wax keeni karo iyo in kale wuxuu ku xidhnaan doonaa war miyaad radan tahay saddexdii arrimoodan soo hadlay ahaa ma isku duuban tahay iimaan ma leeyihiin kuwa dowladnimada haya arkaantii dowladnimo ma adag yihiin markaasaad baayactami kartaa kuwii aan intaa lahayn dee waxa weeyaan martin bay sheeda ka ahaan oo adduunku waxana siiyo hala nacaawiyadan baxayn doona marka waxa weeyaan Soomaalidu waxay odhan jirtay ama tasho lagu taliyo waan tashan weyne soo ma marka hadda wixii la inagu soo tuuro sidii ay gibida ku noolaayee balaqo aan odhan jirnay markuu ka hari waayo waxa laf baad u tuuriyo lafta inta ku sii jeedaad ka socon waa balaqo baa la noqonaya lana yahay marka nobody qof ogi ma jiro nooc u ekaan doono waxaan se ka baqanayaa Afrikaanka iyo adduunyada saddexaad imika IMF iyo World Bank baa deyn fara badan siinaya si corona ay ula dagaalamaan ya waabad qoolkii inta halkaa lagu suray sida hadhow toole waa lagugu sii yarjiido sidan yeel haddii kale maalin dhaweed waxaa la yidhi deynkii baa lanaga dhaafay haddaanu Soomaali nahay horta lama dhaafin waxaa lagu heshiiyey in la dhaafo haddii shuruudo laga soo baxo war markii deynkii hore horta dhibtu inoo geystay nimada lahayn maxay ahaayeen laysma weydiin ma halkii baan ku noqonanaa